kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada maqaal kooban aan ku ifin doono xaaladihii ugu dambeeyay ee Falastiin iyo Israa'iil qodobadana waxaa qayb ka noqonaya gantaalo laga soo tuuray dalka Suuriya oo ku dhacay dalka Israa'iil iyo ciidamada difaaca dalkaasi Israa'iil oo ka hadlay duqeyntaasi barnaamijyo rabshado watay oo hareereeyay magaalada Lod oo aad ugu dhow caasimadda dalkaasi Israa'iil ee Tel Aviv iyo bandow lagu soo ragay isla magaaladaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal maxay yihiin carabta Israa'iil ku nool yaan sidoo kale idiin ifin doonaa oo in badan ay maqasheen carabta ku dhaqan dalkaasi Israa'iil waa kuma imisayay gaarayaan ayaan sidoo kale qayb ka qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan oo diyaar garoowa isagii oo intaa ka dhameystiran aynu ku bilaabnay ciidamada difaaca Israa'iil marka magacoodu loo soo gaabiyo loo yaqaan IDF ta yaa sheegay in 3 gantaal laga soo tuuray dhanka Suuriya kuwaasi oo ku aadanaa dalka Israa'iil qoraal ay soo dhigeen bartooda Twitter-ka ayay ku sheegeen in mid ka mid ah gantaalada uu ku dhacay Suuriya iyaga oo aan bixinin faahfaahin dheeraad ah warbaahinta Israa'iil ayaa ku warantay in labada gantaal ee kale ay ku dhaceen dhul bannaan ah oo ka tirsan dalka Israa'iil iyadoo aan la diiwaan gelinin wax khasaare ah oo geystay macadda cidda ka dambeysay gantaaladaasi laga soo tuuray Israa'iil ee ku dhacay gudaha dalka Israa'iil dagaalkan u dhaxeeya Falastiin iyo ciidamada amniga Israa'iil ayaa hadda ku fidaya daanta galbeed iyadoo la sheegay in 10 Falastiiniyiin ay dhinteen qaar ka mid ah isweydaarsiga ugu cuslaa ay isla weedaarsanayaan mintidiinta Gaza iyo Israa'iil ayaa la soo sheegayaa waqtigan wadahadalo xoogan oo dhexdhexaadiyaal caalami ah ay wadaan ayaa lagu soo waramayaa inay socdaan ugu yaraan 122 qof ayaa lagu dilay Gaza halka 8 laga dilay Israa'iil tan iyo markii uu dagaalku bilowday maalinnimadii Isniinta ahayd aynu ka soo gudubnay haddii aynu eegnana barnaamijyo rabshado watay ayaa hareeyay magaalada Lod oo ka tirsan dalka Israa'iil muddo hal isbuuc ah ayuu qalalaase ka jira dhulka Falastiin iyo Israa'iiliyiinta dhowr maalmood ay socdaan isku dhacyo iyo xasilooni darro kadib Israa'iil waxay ku dhawaaqday in xaalad degdeg ah ay gelinayso magaalo ku taala bartamaha ee Lod taasi oo u dhow caasimadda Tel Aviv kadib markii mudaharaadyo rabshado watay ay saameeyeen carabtu ka tirsan dalkaasi Israa'iil arrintan ayaa saameyn weyn ku yeelatay xiisadda hadda ka taagan ee u dhaxeysa Israa'iil iyo Falastiin maadaama ay tahay markii ugu horeysay ee xukuumadda Israa'iil ee awoodda amarka degdega ah u adeegsatay bulshada carabta ah tan iyo sanadkii 1966 haddaba aynu eegno maxay yihiin carabta ku dhaqan dalka Israa'iil haddii aynu ifinana waxaa laga yaabaa in aad marar badan maqashay dad Israa'iil ku tilmaamaya wadan ay leeyihiin Yahuuda laakiin sidoo kale waxaa hooy u tahay dad badan oo Yahuud ahaynin waxaa ka mid ah carabta laga tirada badan yahay ee Israa'iil kuwaasi oo asal ahaan ka soo jeeda Falastiin balse haysta dhalashada dalkaasi Israa'iil waxaa ku nool shacab wax yar ka badan 9 milyan ku dhawaad 5 meelood meel ka mid ah dadkaasi oo lagu qiyaasayo 1.9 milyan oo ah carabta dalkaasi Israa'iil ee ku naqan waxyaabaha ugu dambeeya ee ka soo kororta xaaladahaasi ugu dambeeyay ayaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa muuqaalada xiga ee ku aadan daanta galbeed iyo xiisadaha isu soo taraya shalay ayay ahayd markii Lubnaan gantaalo laga soo tuuray dalkaasi ay ku dhaceen dalkaasi Yahuuda ama Israa'iil xalay ayayna mar kale dalka Suuriya duqeynay kaga timid 3 gantaal ayaana laga soo tuuray ayaga oo mid ka mid ah uu ku dhacay isla dalka Suuriya laba kalena waxay ku dhaceen meel bannaan ah oo ka tirsan dalka Yahuuda laakiin macada ila wareedyo ka baxsan oo cadeynaya sheegashada ama warka ka soo yeeray ciidamada difaaca ee dalkaasi Israa'iil waxaa xasuusinaynaga mudan in muuqaalo kale aan ku soo baahin doono waxyaabihii ugu dambeeyay ee daanta galbeed ee waqtigan ka taagan xiisadaha ka alolsan wadamada Falastiin iyo Israa'iil
fadlan daawade waxaan ku xasuusinaynaa in muhiim ay inoo tahay inaad subscribe saarto channelkeena sidoo kalena gambaleelka aad furato si ay kuu soo gaadhaan maqaalada halkan aan ku soo gudbino mahadsanid.